السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ونكتم كسر دواد سومالي ندوة جروب وإذا نديار ندي سوق السمادين كوب حياة أفك سومالي قوس وقف الزين تان ندوكين كعشر كنا ما تايو أهادونا ERGB وإنهان Internal Gateway Routing Protocol وحنا بربيرك سيسكا هي اسكال ERGB ما دام شلون سو أرجنا ريب ERGB وحلوق يا سينو يهذا fastest protocol إنه يهي sending update kiisana mataqaanaa waa 50 second multicast unicast uu shaqeeyaa wuxuuna qaadaa 224.0.0.10 administration distance-giisana waa 9 170 waxa uu isticmaalaa markii distribute lagu sameeyo another protocol sida RAID OSPF ayaa wuxuu siiyaa mataqaanaa administration distance-ga 170 max hubkiisana waa 255 default-giisana waa 100 maadaama RAID uu ahaa asaga 15 only كان 255 وانا the fast protocol aan aragna sida u cover gareyn lahayn ERGB maadaama shalay aan soo aragnay laba magaalo sida Muqdisho Kismaayo maanta waxaan arki doonaa saddex magaalo sida isku xirmaan maadaama ERGB uu yahay the fast protocol Muqdisho Kaalkacyo to Hargeysa maadaama shalay ay ahaayeen Muqdisho iyo Kismaayo aan waxaan ku bedelnay Kaalkacyo maadaama dhankaas aan u sii socono marka Muqdisho iyo Kismaayo waa aragnashada si isku cover gareysnaan hadda uma baahnaa inaan mataqaanaa cover gareeno waa inaan Hargeysa cover gareeno ka bacdi aan protocolka saddexda magaalo u sameeyno branchiyada waa inay wada shaqeyn karaan BC-ga Muqdisho yaal waa inuu bixin gareyn karaa kan Hargeysa yaal sidoo kale Muqdisho iyo Kaalkacyo update-ka labada dhinacba waa inaan ka wada arki karnaa marka waxaan cover gareysn ku sameynaynaa Hargeysa أنا أدي سودوية هرجع configuration terminal code أروح علينا هاي show AB interface brief وحلو جاكريسا serial يو fast internet كوا down كاي يو كوان متقنا down كهن okay configuration terminal interface fast internet 0/0 AB address أيام سيرنا fast local link مركور متقنا وين cover جرينا and waxaan siinaynaa teddy oo glass A.0.0.1.255.0.0.0 no shutdown exit configuration terminal serialka hadda waxaan siinaynaa interface serial 0/1 waxaa serial 0/1 waxa uu kaga xiran yahay Kaalkacyo IP address waxaan siinayna 172.16.0.2 waxaan isticmaalaynaa waa glass B glass A lane kan u isticmaalna glass B waxaan u isticmaalaynaa wank okay no shutdown encapsulation ka aan siinayna waa H maadaama HDLS ay leedahay Cisco maadaama ERGB-gana uu u gaar yahay mataqaanaa asagana sidoo kale Cisco waxaan isticmaalaa anagana waxyaabaha Cisco ee gaarka u leedahay shalay waxaan isticmaalay BBB oo open standard haddana waxaan isticmaalay HDLS clock rate 64,000 no shutdown and WR configuration terminal marka aan u tagno marka hadda waxaan cover gareynay laankiisa iyo waankiisa ayaan cover gareynay laakiin wax protocol aan u sameynay Hargeysa ma jiraan waartaan Hargeysa okay good haddana waxaan tegaynaa Muqdisho F9 waxaan u sameynaynaa protocol waxaan leenahay code show AB interface brief lane is up okay waxaan isticmaalnaa lane 10 waankan waxaan u isticmaalaynaa 192 oo glass C asagana configuration terminal interface material waxaan tegaynaa router ERGB 10 waa same autonomous system number oo inay wada leeyihiin mid walba ERGB 10 hadda kan u isticmaalana Kaalkacyo waa 10 inaan u isticmaalna Hargeysana waa 10 haddii difference ay noqdaan mataqaanaa kana 20 oo isticmaalo tan 10 oo isticmaalo wax mataqaanaa communicate kama dhaxayo mataqaanaa ama neighbor mataqaanaa iyo update wax ka wada dhaxayna laakiin waa inay same autonomous system ay wada leeyihiin network 10.0.0.1 network kan waxaan siinaynaa
192.168.0.1 exit intaas ayaan oga baxaynaa muqdisho asagana waxaan tegaynaa gaalkacyo okay soo dhaweeya asagana sidoo kale configuration terminal router ARGB 10 kaasna 10 aan soo siina kan 10 waa inaan siinaa network 20.0.0.0.1 waa LANka network waanka hadda siinayna 192.168.0.2 automatical app ayuu noqdo ujeedaan neighborkiisa uu soo helo oo muqdisho ahaa 192.168.0.1 waad aragtaan aan filayaa neighbor daris waxaa leeyahay muqdisho laakiin ma hayno mataqaana hargeysa ma hayno waa in hadda aan dhahna asagana network 172.16.0.1 waxaan tegaynaa haddaan dhahno show ib road waxaan arkaynaa bes muqdisho diida waxay u taagan tahay ERGB 10 waa LANkii mataqaanaa muqdisho 90gaas waa mataqaanaa administration distancega lambarada saas u badanna waxa waaye ayagana mataqaanaa waa bandwidth fiiladu kaga xiran yahay waa 192.168.1 serialka uu ku xiran yahay waa 0/0 waa haynaa muqdisho okay good aan u laabana marka aan tagna hargeysa ayadana waxaan soo dhaweeyo configuration terminal router ERGB 10 same network taydi online kan siinayna .0.0.1 network waankii oo ahaa 172.16.0.2 automatical app hadda haddaan dhahno show IP address hargeysa anagoo joogno waxaan arkaynaa gaalkacyo muqdisho show IP road d 10 waxaa iskale LANka waxaa waaye mataqaanaa ku yaala muqdisho administration distance waxa dhan soo wada qaran 172 mataqaanaa meeshuu kaga xiran yahayna waa serial zeros numberkana waa inta mataqaanaa hadda aan ku sameeynay 20 waa mataqaanaa gaalkacyo muqdisho waa haysanaa gaalkacyo waa haysanaa anagoo hargeysa joogno okay waxaan aragna sida BC-yada wada shaqeynaya markaas muqdisho ayaa waxaan ka soo dirayaa package soo dhaweeyo muqdisho aan package kan ka soo diraya waxaan u soo dirayaa hargeysa waxaan leenahay si aan u aragno okay package-ki wuxuu ka soo baxayaa PC-ga muqdisho wuxuu imaanayaa switch-ku ka soo tagaya wuxuu tagayaa routerka wuxuu fiirinayaa IP address iyo destination-ka uu yahay mataqaanaa wuxuu ka arkayaa taydi wuxuu keenayaa kaalkacyo wuu fiirinayaa isagana inuusan asaga lahayn uu arkaya LANkiisa lahayn uu gudbinayaa isagana wuxuu gudbinayaa hargeysa wuu fiirinayaa marka IP addresskii mataqaanaa iyo destination-ka wax dhan wuxuu usoo gudbinayaa switch markuu usoo gudbiyo wuu fiirinayaa wuxuu ka fiirinayaa MAC address ayuu ka fiirinayaa wuxuu si toos ugu soo gudbinayaa PC-ga usoo dirnay kan si waad arkaysaan u malaynayaa sida uu mataqaanaa sida tooska ugu soo diray dib ayuu wuxuu ugu soo celinayaa sidoo kale switch-ka wuxuu u dirayaa mataqaanaa acknowledge inuu helay mataqaanaa package-ka loo soo diray routerkii wuxuu u dirayaa hargeysa wuxuu si toos ugu dirayaa soo serial 1/1 isticmaalaya kaalkacyo wuxuu si toos ugu soo dirayaa sane muqdisho waa aragtaan package waa kana waa socdaa wuxuu imaanayaa muqdisho markuu imaado wuxuu usoo diraa sidoo kale switch wuu fiirinayaa waa IP address wuxuu fiirinayaa MAC address oo PC-ga iska leh si toos wuxuu imaanayaa PC-ga good waa aragteen u malaynaa sida wada shaqeynayaan cashirkeena maanta wuxuu ku egyahay intaas wasalaam waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah Maxamuud Cabdi Dacar waxaad nagala soo xiriiri kartiin Somali Network Group website-kan Somali Network Group.blogspot.com ama Somali Network Group @gmail wixii mataqaanaa aad u baahan tahay nagu weydiin kartaan ama Yahoo-geena ah
yahoo.com/username mc maxamuud cabdi dacar oo laga soo gaabiyey mc dacar. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.